قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم اسمقل wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron khilaafkii ugu adkaa oo soo kala dhaxgalay hogaamiyaha guud ee beesha Habargidir iyo madaxweyne Farmaajo waxaana labada dhinac isku hayaan cidii soo xuli lahayd xildhibaanada beeshaas amiirka guud ee shabaab Abu Ubayda oo ka hadlay xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isagoo wacad ku marinaysan aqbalin in badda Soomaaliya qaadato Kenya askari ka tirsan booliska Soomaaliya muqdisho maanta ku dilay askari kale kadib markii uu gudbiyay gaari shacab ah ra'iisul wasaare Kheyro isbitaalka xooga dalka degmada Hodon ku booqday askar ku soo dhaawacantay gobolada dalka Sheekh Shaakir oo la kulmay musharrixii dawladda Soomaaliya oo wadatay doorashada Galmudug Axmed Qoorqoor dawladda Itoobiya oo iska diiday codsi uga yimid digeeda dalka Masar warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah Mareykanka oo looga digay inuu weerar ku qaado Iran haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channel-kan si aad u hesho war ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. amiirka al-shabaab ayaa war ka soo saaray kiiska badda arinta Jubbaland maalgashiga Soomaaliya iyo qodobo kale ururka al-shabaab ayaa baahiyay khudbad dheer oo laga soo duubay hogaamiyahooda ninka lagu magacaabo Sheekh Axmed Cumar Abu Ubayda taas oo uu kaga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka khudbadda oo soconaysay muddo 20 daqiiqo ah ayuu kaga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin maalgashiga dalka dagaalka lagula jiro ururkiisa maamul goboleedyada kiiska badda ee dacwadiisa taala ICJ dhulka Soomaaliyeed ee ay maamusho Kenya iyo arrimo kale oo badan Abu Ubayda ayaa ugu horeyn ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhaxgalay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka wuxuuna sheegay in khilaafkaas uu banaanka soo dhigay saameynta ay Kenya iyo Itoobiya ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya iyo go'aanada dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka mar uu ka hadlayay maalgashiga dalka ayuu sheegay amiirka al-shabaab Abu Ubayda in dalkan uu yahay dal barwaaqaysan oo dhan kasta hodan ka ah allana uu ku maneystay macaadin iyo kheyraad fara badan kuwaas oo bad iyo bari intaba ka buuxo isagoo ugu baaqay dadka maalgashadan dhulkooda kana fogaadaan gacan horsiga shisheeyaha Abu Ubayda ayaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ku dhiirigeliyay inay dalkooda maalgashadaan dhulkoodana tacbadaan dhinaca kale maruu soo hadal qaaday faragelinta shisheeyaha oo uu tilmaamay inay hormuud yihiin Mareykanka iyo Ingiriiska ayuu sheegay in ay duulaan ku yihiin Soomaaliya kana hortaagay yihiin ku dhaqanka shariicada Islaamka isla markaana ay ku dirqinayaan dhaqanada reer galbeedka hogaamiyaha al-shabaab Abu Ubayda ayaa sidoo kale soo hadal qaaday muranka badda ee u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya wuxuuna tilmaamay dhankooda ka shabaab ahaan aysan aqbali doonin wax walba oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah ee ICJ lana dagaalami doonaan Kenya ilaa inta laga soo dhicinayo dhulka ay haysatay NFD federaalka la dagaalama waa qorshe gumaysi waa qabyaalad cusub oo la doonayo in ummadda lagu kala qoqobo dalkan Itoobiya iyo Kenya loo hoskeeyo waxaan ummadeena muslimka ku wargelinaynaa in mujaahidiintu ka soo horjeedaan gaashaankana u daruurayaan go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamad ku sheega caalamiga ah ee ku saabsan loolanka badda Soomaaliya ka taagan waxaan caalamka u sheegaynaa in badaheenu ahayn kuwa gorgortan aan ka galayno martina uguma noqonayno dawlado shisheeye waxaana laga rabaa ummadeena muslimka ah inay ku baraarugto in Kenya ay soo liqday dhul baaxadiisu weyn yahay ka hor inta aysan badda u hanqal taagin Itoobiyana waatan hadda loo saxiixay dekado dhowr ah dalkuna wuxuu ku socdaa in la wada xaraasho haddaydan ka hortagin mujaahidiintana waxaan leeyahay Allah wuxuu idinka dhex doortay ummadda wuxuuna idinku karaameeyay inaad u istaagtaan difaaca diintiisa sunnada nabigiisa sallallahu alayhi wasallam iyo hirgelinta shariicadiisa waana intaas kaliya waxa la idinku colaadiyay la idinkuna gooyay duulaan cirka dhulka iyo badda ahna la idinkugu hayo danta laga leeyahayna ay tahay in la idin dabar gooyo diinta Allahna koonka laga tirtiro
bulshada islaamku maanta way garaadsatay wacyigeeduna wuu kobcay jihaadkuna wuu ka gudbay in awood lagu maquuniyo ama xoog loo sheegto cid kasta oo ka hartana ma tabi doono umana dhutin doono ishaaco lagu furo iyo dacaayado been ah oo laga faafiyo ee ku kadsoomina barbagandaha ay faafinayaan saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilifka u ah dagaalkooda waad aragteen inuu ku soo koobmay duqaymo fulinimo ah iyo hanjabaad afka baarkiisa aanan dhaafsiisanayn waadna ogaateen inaynan ku sugnaan karin furimaha dagaalka waxaan allah ka rajaynayaa inaad arki doontaan insha allah guuldarrada iyo jabka cadowga uu kala kulmi doono furmaha dagaalka waxaa dood culus ay ka taagan tahay qaabka loo soo xulaya xildhibaanada beesha habargidir ay ku leedahay baarlamaanka labaad ee galmudug sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug odayaasha dhaqanka galmudug ayaa ku jahawareersan laba awoodood oo iska soo horjeeda kuwaas oo dana siyaasadeed ka leh baarlamaanka cusub ee galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo golaha hogaanka habargidir ee lagu dhisay magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa isku haya dhismaha baarlamaanka beesha habargidir kasoo gelaya galmudug waxaana ka taagan dood culus golaha hogaanka habargidir ayaa odayaasha dhaqanka ee beeshaas ka dalbaday inay soo xushaan xildhibaano balse ay door ku yeeshaan golaha hogaanka habargidir isla markaana saxiixa ugu dambeeya uu yeesho gudoomiyaha habargidir professor Shirwac odayaasha ayaa ogolaaday arrintaas balse waxaa dhanka kale dowladda federaalk Soomaaliya ka yimid dalab kale oo ku aadan in dowladda Soomaaliya ay door weyn ku yeelatay xildhibaanada beeshaas ee baarlamaanka galmudug xildhibaanada beesha habargidir ee ku leedahay baarlamaanka galmudug ayaa tiro ahaan gaaraya ku dhawaad 40 xildhibaan waxayna muhiim u yihiin dhinacyada isku haya hogaanka maamulkaasi waana sababta keentay in dood culus ay gasho qaabka xulista xildhibaanadan askari mooto bajaaj waday ayaa lagu toogtay maanta magaalada Muqdisho dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay bar kontarool oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska Cali Kamiin ee magaalada Muqdisho waxaana ka dambeeyay askari kale oo ka tirsan dowladda qof goobjooga ah oo xilligu dilku dhacay goobjoog ka ahaa ayaa inoo sheegay in dilka uu yimid kadib markii askariga la dilay oo isku dayay in bajaaj uu marsiyo wadada oo ciidamada uu xirneed hase yeeshee taasi ay muran ka dhalatay waxaa xirneed wadada wiilka bajaajta waday ayaa arkay askari uu yaqaan kadibna wuxuu ka codsaday in uu ka gudbiyo askarta waxayna isku raaceen oo isku afgarteen in askariga bajaajta uu wado wiilka bajaaj lahaana gadaal ayuu soo raacay waxa uu iska dhigay qof bajaajta saaran kadibna waxa ay gaareen askartii waana diideen inay bajaajta gudubto muran dheer kadib askartii bajaajtii ayay rasaas ku fureen sidoo kale goobjoogaha waxa uu sheegay in rasaastii bajaajta lagu furay oo ku dhintay askarigii mootada watay ee doonayay inuu gudbiyo qofkan shacabka ahaa iyadoo sidoo kale ninkii mootada horay u watay uu soo gaaray dhaawac aad culus isla markaana loo qaaday mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho dhacdooyinka la xiriira dilalka ay geystaan askarta dowladda Soomaaliya ayaa inta badan waxay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana xusid mudan in askar qaarkood loo xukumay dil ay u geysteen dad rayid ah Itoobiya ayaa ku gacan saartay codsi uga yimid dhankeeda Masar dowladda Itoobiya ayaa ku gacan saartay qorshe u soo jeedisay dhankeeda Masar oo ahaa qaabka uu shaqeynayo biyo xireenka Itoobiya ay ka dhisanayso wabiga Niil gaar ahaan xadka Suudaan Masar oo ku tiirsan wabiga Niil ayaa ka walaacsan in biyo xireenka Itoobiya uu horseedi karo gabaabsi ku yimaada biyaha iyo waraabka wasiirka biyaha Itoobiya ayaa sheegay in Masar ay doonayso ka faa'iideysiga biyo xireenka taasina aysan aqbali doonin waxa uu qorshaheenu yahay in biyo xireenka aan buuxino xilli roobaadka soo socda waxaan qorshaheenu yahay inaan biyo xireenka aan buuxino xilli roobaadka soo socda waxaan bilaabaynaa in aan ka dhalino koronto bisha December ee sanadka 2020 ayuu hadalkiisa sii raaciyay wasiirka biyaha Itoobiya dhameystirka dhismaha biyo xireenka Itoobiya ayaa hadda ku dhow in la dhameystiro Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa isbitaalka xooga ku booqday askar dhawaan ku soo dhaawacantay howlgallada ka socda gobolka Shabeellada Hoose askarta ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen iyagoo ku jira furimaha dagaalka ee dalka kuwa oo weerar gaadma ay ku soo qaadeen dagaalamayaal shabaab ah
ra-iisul wasaare kheyre ayaa tilmaamay in mid ka mid ah uu booqday ciidamada weerarka ku soo dhaawacmay ee gobolada dalka laga keenay isagoo u ballan qaaday sida la sheegay in dowladda ay ka warxay doonto xaaladooda caafimaad islamarkaana dalka dibadiisa loo qaadi doono kuwooda liita ee aan waxba looga qaban karin gudaha dalka. dowladda Soomaaliya ayaa wada dadaalo wax looga qabanayo weerarada iyo qaraxyada ay geystaan shabaab iyaga oo sheegay in mar waliba qaadi doonaan guluf colaadeed oo ka dhan shabaab. shalay ayay markii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu shir gudoomiyay shir ay ka soo qayb galeen safiirada wadamada amniga ka taageera Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka kaasoo looga hadlayay amniga iyo xoreynta deegaanada shabaab ay ka joogaan dalka. markaana daawadayaal warkii dibadda Iiraan ayaa Mareykanka uga digtay inuu dagaal ka bilaabo bariga dhexe. dowladda Iiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga digtay in la geliyo dagaal ka qaraxa bariga dhexe waxayna sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka bixi doonto jawaab ciqaab adag leh. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Trump oo horey u amray cunaqabatayn dheeri ah oo la saaray Iiraan oo doonaya in xal nabadeed loo helo xasarada. waxa uu hadlayay kadib wadahadallo uu hogaamiyaasha Sacuudiga iyo Imaaraadka kala yeeshay weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Sacuudiga kaasoo Washington iyo Riyadh ay ku eedeeyeen Tehran. Iiraan ayaa beenisay in wax lugu ay ku lahayd weerarka oo Pompeo ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada Sacuudi Carabiya. Pompeo ayaa u muuqday inuu hadalkiisa dabciyay kadib wadahadaladii uu la yeeshay dhaxal sugaha Abu Dhabi oo ah ninka ay ka go'do talada Imaaraadka Carabta oo ah isbahaysiga Carabeed ee ugu weyn Sacuudiga. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay subscribe channel-kan Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.